السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو وعنا وناكسن داوديال meel kasto naga daawanaysan kuna soo dhawaada warka telefishinka Somali News oo ka daawanaysan xarunta uu telefishinku ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warkana waxay idila socotiinaysaa anigoo Asmam Cabdilaahi Cusmaan. Qodobada aan daawadayaal warkan idin ku haynana waxaa kamid ah shirka madasha wada tashiga qaranka Soomaaliyeed oo ka furmay magaalada Muqdisho. wasiirka wasaaradda waxbarashada Somaliland ayaa casuumad u sameeyay guddigii ka soo shaqeysay shirkii ka socday degmada Awrbogays. shirkii qurba joogta reer Somaliland uga socday magaalada Hargeysa ayaa isaguna maanta la soo gabagabeeyay. daawadayaal wararka dibadda ee haynana waxaa kamid ah diyaarad laga leeyahay dalkaasi Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay ku gubatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Dubai. daawadayaal qodobada iyo qodobo kale ayaan idinku haynaa warka telefishinka Somali News oo ka daawanaysan xarunta uu telefishinku ku leeyahay magaalada Hargeysa. imika haatan ku soo dhawaada qodobada iyo qodobo kale oo xiiso leh.